حق الدريركيا ودكتوريا محمد كاهية توشا dadka jooga adduunka ku badalay warkooda horumarkeena mid ka diidan waa danaysta xumaadee dalsankii abaqorey sood wajeer idilkeeda kaan ku diirsan lahayn waa dictor kaahiye ila doorta bulshooy maadoow waa idin salaanay si sanaan idinku salaanay haddana waa idin salaamaynaa idinma dheereynayna waa idin soo dhowey markay tahay annaga meeshaan joogno boodka waxaa noogu qoran qooqaar magaciina wuxuu iska noqday tuula xadar waa isku meel waxaan malaynaa meesha qooqaar la yidhaaha sun wistana uma goosanin istana uma goosanin wajaarsooda u goosanin wajaarsood gudaheeda inay ka dhacaan yaan u goosanin marka waa afar sanafooda ogaada wixii matalan buurahaas u dhacay wajaarsood wixii ku noolna waa afar sanafooda ogaada wariya meel kale annaga uma wadna adigu baan ku wadnaa daktarka nagadan kolkaan intaan goosanaynin ninkaan u goosanayno noo soo hormara adiga maanta meesha hadda bisha aan joognay iyo bisha hadda aan sugayno hadda ama laba ama saddex ka dhiman tahayna waa bilihii barkeysnay oo in been la sheega ayna fiicneen shacbaan iyo soonga wixii ilaahay nagu ogyahay inaan sheegnay annaga yaanaan nagu waajib nagu inkastoo tolkii asbaran yahay tuliyaalkii ay badan yihiin meel kale waxa noogu imaan doonaanana ma ogin taasna waa intaan oo maanta annaga dhaqanka fadhiisanay fadhiga hore horta anaga idiin fadhiisanay ama maarata ogaadeeya anoo imaadaan u fadhiisanay martii maba jirinba kulaxaga ragaana horta salaan islaamka qaaliga diinta nabi maxamed ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum maasha allah wallaahi barakee aniga duu adeerkay waxba waxyaalaan u dhaawaya murugi uma dhaamaay hadalka duqaasaa dhameeyey aniga waxaa layidhaha adan cabdul umar xagar ee hadda magaceeda qaato waad ka siisiin dad badan oo joogay aadan gabbaa sanadkan aniga asaga meel baan ku abarbaxno hal bacaan wada cabayni wuu garanayaa gabdhahaan oo la joogi jira dadkan socdana badan waa u kasaayaa horta waxaan kuu sheegay ninka dhakhtarka kaahiyana dhahaa meeshan geedkan wax kaga soo riinaa jiro waa u malaynaa wax ogaadeen oo geedkan soo fadhiista oo maanta kuuraan rabaad oo intii ka socdo waxaa kaloo kuu sheegi meeshan adda hadda meeshan degan ogaadeen markaa korka dhahay waa beesha geli beesha ree geli waaya markii waa ogaadeen hadda la dhahaa waddanka wajeera south waa waddan weyn waddan maanta wareegaa kubara raad ah daddaa 3 milyan wadata adoo wareeg ku jira kaa dhammaaday waddanka baa xadiis intaas ay la eg tahay ogaadeen markaan nahay waa kala qaadayaa waxaa gacanta ka fakiyey maxaa mas-uuli maqao dadka mid waxaa lahay dad jir iyo duyi jir geli iyo bahgeenu duyi jir ahay ani weliba geli marka waxaa soo gadanaya doon ogaadeen waana geli iyo maqaawal maqaawal iyo maxaa mas-uuli maa waxay soo wadda waxaa adeerkay uu sheegay hadda dhogta waxaa la dhahaa kaayadinkaa soomaali dhakhtar kaayo baldhaha dhogto kaayo dildhaha geli dad sasaacaaba jira dhogto oo maar yaa sanadkaa soo gala dhogto oo maar ani koley ma dhisine dadka aniga ku doo war ninkan muxuu ahay lagu waashi anita ahaa ma dhisin laakiin dadkii aan ka dhashay beeshaan ka dhashay hal ninka arka maray wax qabadkooda wuxuu ka bilaabay war geli qaba ahay war imbiyaalka horo hogaa si ayba nagu dadka horta wanaagiisa waxaa laga gartaa siduu kuu soo dhaweeyey haddii qof aad u soo martiso si fiican kuu sooro waad ogaanaysaa qofka wanaaggiisa iyo macaankiisa sidaad noo soo dhawayseen ayaaba na qanciba haddiiba kuurihii aa noogu darteen haddee waxaan sheegnaba ma garanayso
walaalayaal marka waa la socday dhibka jiro laakiin seendadku waxaa ga qabta waa marka hore inaan isla shaqayno oo horta meesha aan tago meesha markaan tago haddii aan qaban waayo soo qaba gaba soo qaba xareed cabdigeed soo qaba raggaa saytu soo qaba sheekh maxamed maxamuud anigaabay waan doonin laakiin insha allah adigoo raadinin inaan geedkan aan soo fariista insha allah sidaa maanta u soo fariista midda kale horaana waan ku soo sheegay intii meeloo soo maro aniga waxaan kuuro ka doonayo waa ogaadeen iyo wixii kuuro leh oo wejiha sawd degan dhowr jeerna waan ka sheegay arrinta ugu horrayso oo ballanqaadaya waxaa waaye inaan dadka simo oo noqonin mb qola fulaan ee aan noqda mb wejiha sawd ay ii sinaadaan tan aniga aan ka imaado iyo tuulo xagar midda kale oo aan ballanqaadaya waxaa waaye insha allah inaan aniga kuu keenin mashruuc ani aan soo abaabushay oon ku dhihin tanaan tuulo xagar siinaya sax ee ay noqoto waxaad idinka ka shuurayseen ka fariisateen oo dhahdeen 1 iyo 2 iyo 3 aan u baahan tanaana hadda noogu muhiimsan tiina idinka aad gacanta ku qabsataan oo sidaa idinku caawin lahaa aad ku samaysaan insha allah taas ayaa ballantayda aniga insha allah marka wixii idiin daran oo dhan meel kasta deegaan kasta inuu guddi ka jiro ila shaqeeyo waxa dhiboo meeshaa ka jirana aan wax ka wada qabanno ee ay noqonin ani inaan u go'aamiyo jidaan u dhisaa ayagoo biyaba lahayn taasi inay dhicin marka insha allah wax waa wada qabsan doonaa laakiin hadda waxaa waaye neefkii aan qalan lahayn erigii uu ku jiro uu naga dhumay aan wada raadinno markaan soo helnana haddee wankii ugu fiicnaa aan qalanno marka taasaan hadda ku jirnaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin inaan hadda in weydiistaba ma aho idinkaaba dhammayseen anoo hadlin oo isiiseenba kuurihii waana mahadsantihiin mar koowaad mar labaad mar saddexaad insha allah mar kastana xisaabtaan ku darsanayaa hadda sidii uu sheekhaas ka dhawaaji waxaa bilaabanaysa bishii barakeysneed sabtidaas lagu soo foodlay sida la rajaynayo insha allah markii uu ramadaan dhammaado waa waqti cibaado haddee 6 shawaal lagu darsado wixii ka dambeeyey annagoo saan u soconinoo haddee markaas gooni u socdo baryi kara tuuro xalal insha allah inaad iin imaado yaan rajaynayaa hadduu alla idmo wasalaamu calaykum waraxmatullah